ابن تيمية وأظن إلهي أو هوجي أيود أو هباجي أو أرك تري أو مقل تري أو دلي ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال عامله الله بعدله وحنا لقى آمنه نكاس صيغة إنه يا مبتدع هباوسن ضدك هباجي جاهل حد قدبي عامله الله بعدله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ولا ليال وعربنا وذات دن يرى أو ويركو قاضي الشيخ عالم أو علماء الإسلام كأسو أدري كمذا إن أن جوابنا أسرع مدان لا نهي ماشي وحكسوا قاطنا وقتل ما مدونا وأسرع بشاقي شيخ علماء وحي كدهان أم بان شيخنا أنا شيخنا مهم أها لحالك أمد وقتك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه علماء الإسلام كوحي ay ka dhaheen taasa nagu filan taas baa nagu filan isaga waxaan leenahay waxa kula haboona maadaama aqaabkii culimada u soo labisatay in naciibkaaga aadan wax ku dhisin oo culimada islaamka aad wax ka soo naqliso si guud hadii masaa'il aad ku qabsan karto sheekha masaa'isha aad soo qaadato aad masaa'ishan uu qaba kitaabadaasi ku qoranta isaga uu leeyahay adoo aan ku baan abuurnaynin marka labaad aayaadka axaadiista iyo diinta waxa ay ka qabto waxa asaga uu qabo inaad babar dhigto oo miisaanka aad saarto culimada islaamka waxa ay ka dhaheen aad sheegto masaa'ishaas saasaad habooneyd waxaan islahaa ninkan xaguu ka keeno warkan waxa ka darnaa waxaas oo dhan markii uu ka hadlayay culimadii difaacday sheekha oo meelaha wax ka soo naqliyay u jawaabtay oo sheekha amaanay markuu ka hadlayay wuxuu yiri waa calooshood u shaqaystayaal lacag ay qaateen subhanallah nin marka beesa qaat nin beesa qaatay waxaana ka hadlo sidaas lafteedu u sheegay sheekhan zaahidka ah oo la yiraahdo Muhammad Zahid Al-Kawthari wuxuuna ku sheegay dhowr meel oo maqaalaadkiisana hadalkaas uu ku qoray kitaabkan kale oo la yiraahdo Tabdiid al-Dhalam al-Mukhayyam min nuniyat ibn al-Qayyim kaasna uu ku sheegay haddii qof kastaba qofku nacbi uu yiraahdo calooshiid u shaqaysto waay haddii waxaas dhaqan culimo ma aha waxa aadan qabin qof qaba hadii aad aragto inaad caayso sax ma aha diintu kuma banaanayso waxaan islaha marka warkan xaqu ka keenay ninkan waa nin Soomaaliya waxaas kuma dhiiran karee maraafido iyo shiic ka soo qaatay asaga bacday wuxuu yiri Kawthari warkaas sheegay Kawthari muxuu yahay marka Kawthari waxa uu yahay markaan ogaano waxa noo cadaanaya warka wadana qiimaha uu leeyahay yasuu mataq inuusan qiimo lahayn wax bahdil inuu yahay noo cadaanayso Kawthari kitaabo fara badan uu qoray min raafidi ayuu ahaa jahmiya oo Abi Hanifa uu mataqaana uu nasba sheegto uu tacassuba madhabka Abi Hanifa ninkaas culimada islaamka dhan wax ka nabad galay malaha hatta saxaabada waa duray Imam Shaafici nasabkiisu waa duray jaahilu ku sheegay inuu mubtadac uu ku sheegay hada Kawthari warkiisa hadii aska wada laqay warkaasna qaado Imam Shaafici saas waa dheh Imam Malik nasabkiisa ayuu duray أحمد بن حنبل وحاوي وكشاي إنه أهانين مبتدع ويلكيس عبد الله إمام أحمد مجسم مكشاي علماء الحديث وننسى أدري وحكنا بتقول لها كتابه قريل هذا تأنيب الخطيب البغدادي يعني عنا يوليه وكدر يا ركلا أجابي علماء بعض الكيسوال عدي ننكاس مركوان النوع عاصة وركات كسو قاطع وحي أهيدا اسكهو بسو مركو علماء عينايو أنا اسكهو قاطع ما أهين ناسكو بسيئات علماء أمانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عيد كبديهين وحاكم الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وحويره ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد المفتي شهاب الدين أيوة معني الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام أيوة معني وعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك عزيري وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد وحوشا إنه ألفيه 300 oo kitaab hadii xoogan ka Soomaaliyeeno imaam sheekha lagu daydo cilmi badanaha xaafidka oo waxa weeye faqiih aha oo mujtahidka aha oo mufassirka aha
oo baac dheer u lahaa tafsiirka shaykhul islaam islaamka sheekhiisi ahaa zuhaadda culammada zuhdiga u saaxiibka ah buurtoodii ahaa casrigiisa ku kaliyaabay aad ayuu u ammaanay wuxuu cilmigu ku sheegay inuu cilmi xadiidka baac dheer u leeyahay fiqhiga culumul islaam waxaasoo dhan ayuu ku sheegay hadduu calooshid u shaqaysta yahay alxaafid jalaaludiin asyuudi asagana noo sheeg lama baciidsan ayaad tirahdee warkaas waxaad ka heli kartaa dabaqaat alxufaad ayaad ka heli kartaa. culimada ammaantay shaykhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi caleyh waxaa ka mid a alxaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa addurar alkaamina meelo fara badan ayuu kusoo qaatay ammaanta sheekha iyo ka sheekeyntiisa. wararkii uu ka yidhi waxaa ka mid ahaa nadara fi rijaal walcilal watafaqaha watamahara watamayaza wataqadama. rijaalu xadiid iyo cilooyinka xadiidka ayuu fiiriyey oo aqoon durugsan u lahaa. faqiih ayuu noqday, waxa weeye cilmigu baac dheer u yeeshay, waa uu ku soocmay, uu ku hormaray, wasanafa wadarasa wa aftaa. waxaa kitaab buu qoray, waxbuu daraaseeyey, waa fatwooday, wafaaqa alaqraana dadkii asaga lamidkaa oo saaxiibadiisa uu ka sara maray. wa saara cajaban fi surcati alistixdaar, wuxuu noqday layaab xagga soo xaadirsiga degdegtiisa. wa quwati aljinaan waltawasuc fi lmanquuli walmacquuli walidaalati calaa madhabi asalafi walkhalaf, iyo inuu aqoon durugsan u lahaa culumta naqliga iyo culumta caqliga. wuxuu aada u dheereeyey madaahibta salafka iyo khalafka intaba. sidaasoo kale ibnu xajar raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa addurar alkaamina marka uu ka hadlayo shaykhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi wuxuu soo naqliyaa culamo ammaanayso. wuxuu ku leeyahy asoo sheekha ka hadlaya shaykhulislaam asoo ka sheekeynayo shaykhu taxqiiq assaaliku biman itabacahu axsana dariiq, sheekhii u saaxiibka ah xaqiijinta oo qofkii asaga raaco uu raacayo wadada ugu toosan ugu wanaagsan. di lfadaa'il almutakaathira walxujaj alqaahira alatii aqarat ilumamu kaafatan ana himamaha can xasriha qaasira wamatacana allahu biculuumihi alfaakhira wanafacana bihi fi dunya walaakhira. bal warkaas dhegeyso. wuxuu leeyay fadaaisha badan u saaxiibka ahaa, xujooyinka wax qahra oo wax qasba u saaxiibka ahaa oo ummadahoo dhan ay qireen, ummadahoo dhan. bal fiir warkaas dhegeyso. in himooyinkeeda in lasoo kooba ay ka gaabiyeen. ilaahay ha noogu raaxiyo culumtiisa sarraysa ee wanaagsan. ilaahay ha nagu anfaco adduunya aakhiro. saasuu leey fiiri, ilaahay ha nagu anfaco sheekha adduunya aakhiro. wahuwa shaykhu alimaam alcaalim alrabbaani walxabru albaxru alqutbu alnuuraani imaamu ala'ima barakatu lumma calaamat alculamaa waarithu alambiyaa aakhiru almujtahidiin awxadu culamaai ddiin shaykhu lislaam xujatu alaclaam qudatu alanaam burhaanu almutacalimiin qaamicu almubtadiciin. mubtadiciinta kuwa bidcoolayaasha ah midka qamciyey. haddaba wax lagula diriraana waa taas. sayfu lmunaadiriin baxru lculuum kanzu lmustafiidiin turjumaan alqur'aan cujubat zamaan fariid alcasri walawaan. soowad culummada kaloo ka sheekaysan aada u badan yihiin. dahabi iyo ibnu kathiir iyo waxa weeye ibnu qayim iyo aaday u badan yihiin wararkooda iyaga. isaga wadaadkan ibnu qayim baa aflagaaday wuxuu yihi copy basti le ayuu sameeyey, wax kale ma sameyninba. cilmigiisa iyo dadka xataa hadda jooga suufida ah waxbay kasoo naqliyaan, waa ka faa'iidaystaan. cilmigiisa way qiraan. dhaqan culimo ma aha dhaqankan, dhaqan kawthari a kala timid waa ee culimada la aflagaadeeya. sheekhow ilaahay ka cabso. meel kale wuxuu ku leeyahay ibnu xajar raxmatullaahi calayhi wa shuhratu imaamati shaykh taqiyiddiin, caanimada imaamnimada sheekh taqiyiddiin ashharu min ashams, waxay ka caansan tahay qoraxda. wa talqiibuhu bishaykhi alislaam, in lagu koofaaro oo lagu naynaaso shaykhulislaam islaamka sheekhiisa fii casrihi baaqin, casrigiisa in lagu naynaaso shaykhulislaam waa mid jirta ila alaan ilaa iyo hadda. cala alalsinati azakiya, carabada wanaagsan ay baaqi ku tahay. haddii qofkii carabkiisa usan wanaagsanayn oo cilmigii iyo cadaaladii ka leexday waa wax isaga u gaara. carabada wanaagsan wuxuu leeyahy baaqiyay ku tahay. wayastamiru gadan, berrina waa jiraya kamaa kaana bilamsi, siduu shala ahaa, siduu shala shaykhulislaam u ahaa berrina waa u ahaanaya, weligiisna waa ahaanaya. walaa yunkiru dalika, arrinkaas ma inkiro, arrinkaas yaa inkiro, arrinkaas ma inkiro ilaa man jahila miqdaarahu, qofka jaahila qadar sheekha qadarkiisa, aw tajanaba alinsaaf, ama ka fogaaday waxa weeye cadaaladda iyo garsoorka. sidaasuu leey sheekha. waxaa inkira qof mataqaanaa jaahilka ah qadarkiisa. wadaadkan oo ka kicinayo waxa isaga uu soo qortay hadduu qadarkiisa garan lahaa kuma mashquuleen culummada aflagaadayntooda
iyo ijaafayntooda iyo duritaankooda iyo calooshood u shaqaystayaal waay iyo koobi baasti ay sameeyeen iyo inuu yirahdo culamada islaamka kuma mashquuli lahayn. qofka daa iskhilaaftaan inuu xun yahay macnaheeda ma aha. waxa aad ku qabsato aad ku haysato waxaa la rabaa inaad ka niqaashi karto, caddayn kartaa laga rabaa. bal haddana hal sheekh oo ka mid a culamada shaaficiyada bal aan ku darna haddana sheekha la yidhaahdo alimaam qaadi qudaat alislaam bahaa-uddiin abulbaqaa maxamed ibn cabdilbar ibn yaxya asubki ashaafici. nin shaafici ayuu ahaa, alfaqiih ashaafici annaxwi almutafanin. ibn xabiib wuxuu leeyahy shaykhun faadil kaana qudwatan fi lusuuli walfuruuc. sheekhaas wuxuu lahaa kitaab la yidhaahdo mukhtasar lmadlab fi sharxi lwasiit fi furuuc shaaficiya. sidoo kale sharxu lxaawi asaghiir liqaswiin ayuu leeyahay oo kitaab fiqiya. sharxu mukhtasar ibn xaajib ayuu leeyahay. sheekhan wuxuu leeyahay isagana wuxuu maqlay dad wax ka sheegaya ibnu taymiya raxmatullahi calayhi, sida ninkan oo kale hadda iyo kowthar iyo kuwa lamidka ah oo xilligiis wax ka sheegaya ayuu maqlay. markaasu wuxuu yidhi wallahi ya fulan, allaan ku dhaartay hebelow, maa yubgidu ibna taymiya, ibnu taymiya ma nacba ilaa jaahilun, qof jaahila aw saaxibu hawan, ama qof u saaxiiba hawo unbaa naco. faljaahilu laa yadri maa yaquul, qofka jaahilka ah oo diinta ilahay waxba aan ka ogeyn oo dhaqan culamo aan lahayn waxa uu leeyahay ma oga. wa saaxibu hawa, qofka hawada u saaxiibka ah ahlu bidca mubtadic ahna oo hawadiisa raacayana yasuduhu hawaahu can ilxaqi, hawadiisa ayaa ka jeedinaysa oo ka celinaysa xaqa bacda macrifatihi bihi, marka uu garta kadib. markaasna waxaa ka fiiri kartaa aradd lwaafir ayaa ka fiiri kartaa. sheekhow marka wax raddi ma xuma, wax ka hor imaw ma xuma, wax nac ma xuma, laakiin waxaa laga rabaa cadaalad inaadan ka bixin. qofka aad nacdo inuu xun yahay macnaheeda ma aha, qofka aad jeceshahay inuu fiican yahay macnaheedu ma aha. ilahay qur-aanka wuxuu nagu leeyahay walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu, yaysa idinku xambaarin nacayb aad dad u qabtaan in cadaaladda ka tagtaan oo cadaalad samey weysaan. icdiluu huwa aqrab litaqwa, cadaalad sameeya, cadaaladda u dhowaan badan alla ka cabsiga. aniga haddii aan ku naco in waxaan rab aan kugu sheegi karo ma aha. haddii aan waxa weye kula dirirsanahay in wax kugu khilaafo, wax aan kugu khilaafay in aan caddeeyo inay baadil yihiin oo banaan kala imaado sharxo ayaa laga baahan yahay. laakiin inaan ku caayo wax macnaa ma samaynayso. haddii aad qof cayso qof kale ku caynayo waxay soo kordhinaysa ma laha. cayda iyo aflagaadadan dhaqan culamo ma aha. dadka jaahiliintaha kaa cay badan adiga haddii cayda wax moodo waa laga cay badan yahay. marka cay wax looguma difaaco, caadifad wax looguma difaaco. xaqa waa cad yahay, waxa aad qabto caddayso, banaanka soo dhigo. allah ku barakeeye.